بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها بارلمانكا قدوميه ku-xigeenadiisa wasiirada golaha wasiirada xukuumadda taliyaasha ciidamada safiirada ururada bulshada xildhibaanada Soomaaliyeed ee sharafta leh kulligiin baada saxaafadda bulshada rayidka haweenka ummadda Soomaaliyeed oo dhammaan kulligiin waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa runtii maalin weyn oo taariikhi ah in dalkeenu soo gaaro in la isugu yimaado in xaflad lagu maamuusayo sharafta iyo shaqada iyo karaamada qof Soomaaliyeed oo gudoomiye ah la xasuusiyo waxay qayb ka noqonaysaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa horta inaan ku bilaabo marka hore intiina fahamsan iyo intaan fahamsanayn taariikhda uu ku fadhiyo gudoomiye Jawaari waxay qayb ka tahay astaanta qaranka Soomaaliyeed ciddii karaameyn weysa madaxdooda naftooda u soo hurtana horumarkooda uu daciifaya markuu gudoomiyuhu ii sheegay inaan imaado waxaan u sheegay meel walbood igu yeerto waa imaanaya gudoomiye maadaama Jawaari gudoomiyaheena Allah barakeeyo uu yahay astaanta qaranka horta waxaan rabaa inaan ka codsado dadka hoolkan ku jira inaan u qaadno heesta astaanta qaranka alaala waxaan rabaa marka hore inaan ku bilaabo inaan u mahad celiyo dawladda Talyaaniga oo soo qaban qaabisay xafladan waxaan aad uga cudur daaranayaa in annagana la kaga hormaray biladan inaan gudoomiyaha annaga gudoonsiino waxaan aad ugu boorinayaa shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka in maalinta ay tahay maalin uu bilowday in dhaqankeenu iska bedelo inaan ammaano madaxdeena markay shaqo wanaagsan qabtaan runtana u sheegno markay shaqo wanaagsan qaban waayaan in maanta la isugu yimaado xafladan waxaan aaminsanahay inuu mutaystay gudoomiye Jawaari waxa kaloo uu mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenadii la soo shaqeeyay kana la soo shaqeeyay baarlamaanka sagaalaad oo hadda nagala joogo mahad awad waxa kaloo ammaanayaa baarlamaankii sagaalaad oo iyaguna ammaantan wax ku leh waa inaad dareentaan in gudoomiyaha bilada la siinayo ay ka timid shaqadii aad isaga la soo qabateen gudoomiye Jawaari waxa uu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed oo ka turjuma shaqada xirfadeeda iyo qaabka loogu shaqeeyo karti iyo hufnaan gudoomiyaha waxaan ka faa'iideystaa khibradiisa mar walba oo shaqo qabanayana waan u tagaa anigoo doonto taladiisa waa nin degan wadaninimadiisa aan su'aal la gelin karin dadka isku haya dulqaadkiisu uu yahay geed weyn oo la harsan karo maadaama marka uu Jawaari yahay qof ximbaarsan taariikhda Soomaaliyeed inteena ka yar yar horta waxaan ugu waajibahay inaan ka barano
isagana waxaan ka codsanayaa inuu nabaro waxyaabaha naga khaldan iyo waxaan uga baahannahay taariikhda. laakiin waxaan rabaa halkan inaan laba eray ka iraahdo. haddii aad ku faraxsan tihiin in maanta xafladan lagu maamuso gudoomiye Jawaare sida aan anigu ugu faraxsanahay, haddii aad rabtaan inaad u hiilisaan gudoomiye Jawaare, haddii aad rabtaan inaad maamustaan gudoomiye Jawaare, waxaan idinkula talinayaa inaan yeelno sida soo socota. waa inaan ku caawinaa gudoomiye Jawaare si uu u arko waxa qalbigiisa ku jira. qalbigiisa waxa ku jira gudoomiye Jawaare haddaan akhrinana waxa uu rajo ka qabaa inuu ka tago Soomaaliya ay xaq u leeyihiin dadka Soomaaliyeed oo naga dambeeya. wuxuu rabaa inuu ka tago taariikh ummadda Soomaaliyeed oo nabada. wuxuu ka rabaa inuu ka tago taariikh aan leenahay sharci aan isku maamusno. waxa uu rabaa inuu ka tago dadka Soomaaliyeed oo khilaafkoodu dhammaaday oo u soo hiloobay wanaag iyo jacayl. waxa uu ka rabaa inuu ka tago Soomaaliya oo nabad ah. waxa uu rabaa inuu ka tago Soomaaliya oo midaysan. haddii aan rabno marka si aan uga faa'iideysano khibradda gudoomiye Jawaare uguna hiilino taariikhdiisana aan qayb ka noqono, waa inaan xoojinaa kalsoonida ummadda Soomaaliyeed. waa inaan kala qoqobnaanta isku duubni ku bedelnaa. waa inaan isdhegaysanaa xataa marka aan isfahmi weyno. waa inaan isugu dulqaadanaa dhibka. waa inaan isu caqli celinaa marka aan khalad galno. waa inaan bilownaa inaan runta isu sheegno. waa inaan danta ummadda Soomaaliyeed ka hormarino danta gaarka. waa inaan intaan isku duubnaano nabadgelyada ka shaqeynaa, waxbarashada iyo caafimaadka ka shaqeynaa, dhaqaalaha ka shaqeynaa, musuqmaasuqa la dagaalanaa, baranaana madaxda Soomaaliyeed in runta loo sheegi karo. maantay waxaan fursad u leenahay inaan wax ka bedelno taariikhda iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. tallaabada ugu horeyso looga bedeli karana waxay tahay inaan wax ka barano gudoomiye Jawaare. haddii aad u tagtid habeenkii 8 saac shaqo ku jira, haddaad soo wacdid subaxii 8 telefoonku ka jawaabaya, haddaad warqad u soo dirto uu kaaga jawaabaya. xataa haddii uu ka fikir duwan yahay weligiis maqli maysid codkiisu kor u qaado. dhaqankeennii ahaa in qof walba oo Soomaaliyeed oo haliyey hal xumeeyo, waa inaan ku bedelnaa inaan marqaati ka noqono wanaagay dadku soo qabtaan. waa in dadka Soomaaliyeed la isku soo dhaweeyaa annagoo is ixtiraamayna. baarlamaanka Soomaaliyeed xildhibaanada ku jira waxay noo leeyihiin sharaf iyo karaamo. iyagaa noo dejiya sharciga. waqtigii ay jiri jirtay baarlamaan iyo xukuumad iyo madaxweyne isdagaala waa inaan ku bedelnaa waqti kulligeen aan gacmaha isqabsanno, dalka Soomaaliyeedna aan u shaqeyno. haddii ay dhab naga tahay inaan maamuusno gudoomiye Jawaare, aniga dhab ay iga tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan isu dulqaadanno taariikhda ummadda Soomaaliyeedna wax ka bedelno. dalkeennu wuxuu uu leeyahay maantay fursad uu ku gaari karo meeshii aan rabnay. laakiin waa inaan aqbalnaa kow inaan dalka wada leenahay. labo inaan wax walba maanta la samayn karin, laakiin haddaan dulqaadanno berrito inuu roob di'i karo. iyo saddex inaan badinay saabinaadda. gudoomiye Jawaare waxaan kaaga mahad celinayaa shaqada aad dalkaada u soo qabatay. waxaan kaaga mahad celinayaa midda aad u hayso. waxaan kugu dhiiri gelinayaa inaad dadka anigu aan ka mid ahay
inta aad tusaaleyn kartid aad tusaaleysid